وموقال موجينيا dad rayid ah oo lulaya astaamaha Eritrea iyo kuwa Tigreega muuqaalkan ayaa sida xogaha lagu baahiyay telefishinka Tigreega lagu sheegay in ay kulmeen maamulada deegaanada Salambasa ee Tigreega iyo kuwa safan ee Eritrea kulankan ayayna ku macneeyeen isku imaanshan nabadeed iyo isdhaxgal iyagoo diray fariin ah inaysan mar dambe kala fogaan doonin dadka deegaanadaasi Abiy Ahmed Ali ayaa isbuuci tagay ku dhaliilay dalalka Eritrea iyo Suudaan inay abaabulayaan duulaan asaga lagaga tuurayo xilka asaguna uu ugu yeeray cadawgiisa hadda jira iska horimaad askareed oo ka dhacay waqooyiga gaar ahaan degmada Shire oo dhaxmaray TPLF iyo ciidamada Abiy Ahmed waxa soo baxay durbadiiba muuqaal muujinaya isu dhawaanshaha shacabka Tigreega iyo Eritrea oo mar aha kuwa ugu kala fog siyaasad ahaan horseedayna dagaal ballaaran oo dhaxmaray Ethiopia iyo Eritrea oo toogadaasi hogaaminayeen TPLF Abiy Ahmed ayaa bilowgiisa kursiga mar ka dhigtay Eritrea saaxiib dhow oo uu ku qaatay heshiiskii uu la galay siyaasi Afrika bilada nabadda ee adduunka balse muddo kooban Abiy ayaa u muuqday mid weerar afka ah ku qaaday dalka Eritrea isagoo damac ku muujiyay sida uu u rabo qaadashada qayb ka mid ah dalka Eritrea arrintaasi ayaa loo arkay qariska tuurnimo siyaasadeed si walbaba dhaliilaha Abiy Ahmed oo la isku wada daray waxay muujinayaan inuu yahay gobolka mid kaga jira go'doon siyaasadeed isagoo lumiyay dhammaan xidhiidhadii gobolka dagaal siyaasadeedna abuuray isu soo dhawaanshaha Eritrea iyo Tigreega ayaa la aaminsan yahay inay ku noqon doonto maamulka Abiy khatar aad u weyn oo xukunkiisa ka dhigi karta mid soo gabagabooba sababo la xiriira in jabhadaha tirabeelka ah ee duulaanka ku ah maamulkiisa ay helayaan fursad ballaaran oo la mid ah hanaankii uu ku waayay Mengistu kalkii hore Shu'aib Umar ona